gobolka Gado waxaa lagu tiriyaa inuu yahay gobolka labaad ee ugu weyn 18 gobol ay ka kooban tahay Soomaaliya. Waxa uu Ilaahay ku manaystay kheyraad fara badan. Gobolka Gado waxaa mara webiga ugu weyn Soomaaliya ee Juba iyo webiga Daawa. Waxa uu gobolka Gado ku caan yahay beeraha. Waxaa sidoo kale lagu qiyaasaa in shacabka Gado ay 60% yihiin xoolo dhaqato, kuwaas oo ah reer miyi. Inkastoo gobolka Gado ka dhaqaale iyo horumar yar yahay gobolada kale ee Soomaaliya, haddana waxa uu leeyahay ilo dhaqaale oo aad u muhiim ah, kuwaas oo haddii laga faa'iideysto u horseedi kara in gobolka uu noqdo mid ka mid ah gobolada ugu dhaqaalaha badan Soomaaliya. Gobolka Gado waxa uu xad la leeyahay labada wadan ee dariska nahay ee Kenya iyo Ethiopia. Inkastoo dawladda dhexe ay u xil saaran tahay xuduudaha iyo kasamka dalka, haddana waxay gobolka Gado u tahay fursad ganacsi haddii la horumarin lahaa kasamka magaalooyinka Doolow iyo Balad Xaawe, kuwaas oo ay ka faa'iideysan lahaayeen ganacsatada gobolka iyo kuwa dalka. Balse waxay u eg tahay in aan laga faa'iideysan doonin fursadaasi caqabado xagga siyaasadda ah awgeed oo gobolka la dhacayay tan iyo burburkii dalka 1991. tan iyo markii uu qaatay dalka qaab dawladeedka federalismka ah, gobolka Gado waxaa lagu hayay xuquuq siyaasadeed ilaa iyo markii uu qabtay Axmed Madoobe xilka sare ee Jubbaland. Waxa uu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay sidii uu hoos keeni lahaa maamulkiisa shacabka ka irdooday Jubbaland, isagoo isticmaalaya qaab walba oo uu ku soo xirigelin karo, hadday ahaan lahayd gumaadka shacabka, isagoo isticmaalaya diyaaradaha Kenya kuwaasoo dad iyo dunyaba ku xasuuqay, ama siyaasiyiin u dhashay Gado kuwaasoo ku bedeshay dhiigga shacabka ay ka dhasheen shilimaad. Gafafka loo geystay shacabka Gado kuma eka uun xusuuqa maatada, balse waxaa kaloo la boobay masiirka siyaasadooda heer federaal iyo tan goboleed, ayagoon lagala arisan ciddii ku matali lahayd golaha shacabka Soomaaliya iyo kan Jubbaland ayaa waxaa la geeyay siyaasiyiin aan dan ka lahayn u adeega bulshada Gado. Tan waxaa dheer in dawladdii dhexe ee mas'uulka ka ahayd badqabka iyo isu keenidda shacabka Jubbaland inay la safatay maamulka keligii taliska ah ee Axmed Madoobe. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ahaa maskaxdii ka dambeysay boobkii doorashadii 2019, taasoo Axmed Madoobe ku boobay doorashadii madaxweynenimo ee Jubbaland, isagoo isla markaana ugu abaalmariyay Xamse shaqadii wacneed uu qabtay inuu noqdo xildhibaan golaha shacabka. Dadka qaar ayaa qaba in Xasan Sheekh uu u magacaabay Xamse Cabdi Barre wasiirka koowaad si uu ugu abaalmariyo Axmed Madoobe oo lug ku lahaa doorashadii lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Isku soo wada duubo, siyaasiyiinta u istaagay badbaadinta masiirka shacabka Gado oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Buule Garaad ayaa ka biyadiiday qorshaha cusub ee lagu doonayo in la hoosgeeyo Gado Axmed Madoobe, iyadoo uu horkacayo qorshahaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. inta ayada qabnaan soo dhaweyn waxaa marka haddana nala ku sii sameynaya ninkii ra'iisul wasaaraha hadda noqday oo aad ogtihiin oo Xamse oo aqoon aad u leediin ma meel nabad laga rabaa Jubbaland baa la siinaya ra'iisul wasaaraha inta la yiri yaa waxa la keenay ninkii Jubbaland kala diray yaa la keenay oo yiri 3 ii keen mid baan kala baxaya. meeshaas marka Jubbaland ma nabad baa laga rabaa, ma inay isu timaadaa laga rabaa. Jubbaland oo ogtihiin oo dadka aqoon-yahanada iyo dadka waxgaradka iyo dadka aqli u saaxiibka oo inta aragtay leeg ayaa waxaa laga soo saaray ninkii Jubbaland kala diray yaa abaalmarin waxaa loo siiyay inuu ra'iisul wasaare noqdo. meeshaas meel nabad laga rabana maaha, meel wanaag laga rabana maaha. ninka asaga ah maanta yaa xafiis ku fadhiyo ma u maleynaysaan inuu cadli idin samaynayo? ma jirto cadaalad kama sugaysaan. kuwa hadda uu soo dirahayo bowdka madaxa ku hayana waxa ay raboorka u geenayaanna asaga way. kuwa wasiiradooda waa imaanaynaa oo maartay laga sheegayo waxa ay warqadaha u qorqorahayaan oo rabaan inay hadalkiina u geeyaan asaga hadday u geeyaanna wuxuu idinku samayn jiro buu idinku samaynaya. wanaag kale oo idinkaga imaanaya ma jiraan. tan iyo asaaskii Jubbaland Gado kama aysan helin codkeeda horumarineed haddii ahaan lahayd dhismaha wadooyinka iyo horumarinta hay'adaha dawladda, inkastoo ay kala siman tahay dhammaan magaalooyinka Jubbaland. Qaar ka mid ah waxgaradka Gado ayaa qaba in Gado inaysan u baahnayn inay horumariso dhaqaalaheeda dekedda Kismaayo, waayo Gado waxay haysataa
dekadaha loo yaqaano dry port oo haddii aqoon-yahanada iyo ganacsatada reer Gado iskaashadaan ku baahitiri karaan shacabka u hamuun qaba dowladnimada. Ugu dambeyntii, Gado cid uma maqna ceelna uma qodna, waxa u furan hal wado oo kaliya. Dhammaan aqoon-yahanada, ganacsatada iyo jaaliyadda waa in ay isu tagaan kana tashtaan sidii ay u samata bixin lahaayeen shacabka Gado oo uu dilooday dowlad xumada iyo abaaraha soo noqnoqday. Horaa waxaa loo yiri dad aan tashan waa loo taliyaa.